maxay ahayd wixii ka caraysiiyey tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone. sheekadan ku soo qaadan doona taa oo keentay in la sii calaamada guudan ee roosaha kulamada la ciyaari doona maanta ayaa qayb ka ah muuqaalkan saaxiibayaal. subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay bartan aan ku leenahay YouTube-ka. tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa sheegay in taageer Liverpool aflagaadeynta ciyaartii oo dhan socotay kulankii Champions League 3 gool iyo 2 gool lagu awood sheegtay. Simeone ayaa cazaan toos la siiyay kadib markii isku dhaceen taageeradiisa daqiiqadii ugu dambeeyay Liverpool ayna si degdeg ah u heshay 2 gool hore u dhalayeen Andy Robertson iyo Mohamed Salah. balse Atletico ayaa barbaray daqiiqadii 61 Marc Llorente oo 2 jeer shaqo soo taabtay. Virgil ayaa ugu dambeyn Liverpool guush u xaqiijiyay madax muujisa kadib cross oo ka helay Dominic Szoboszlai. taageeraha Anfield ayaa u dabaaldegay goolkii guusha. Simeone ayaa u dhaqaaqay taageero fadhiya safka hore balse waardiyaasha ayaa kala qabtay. wararka ayaa sheegaya in taageerayaasha ay aflagaadeeyeen tababaraha Simeone oo dhacda ka hadlay wuxuu yiri way aflagaadeeyeen 90 daqiiqo oo dhan jawaabteeda lagama cudur daaran karo balse waxaad qiyaasi kartaa xiisadda marka kooxda ka soo horjeedo gool dhaliso. Argentina in la aqoonsado qofka falkaasi sameeyo talaabo laga qaado. Simeone wuxuu ku andacoonayaa way aflagaadeeyeen 90 daqiiqana aad ay dhibeen ayuu yiri tababariga cajiibka ahaa ee kooxda Atletico de Madrid ka oo aad u carooday kooxiisa guuldaro ay ku dhacday. dhinaca kale Thierry Henry xidigii hore kooxda Arsenal ayaa magacaab hal koox u aaminsan yahay inaysan ku guuleysan doonin Champions League xilli ciyaareedkan sida uu sheegay wariyaankii hore Francis Liverpool kuma sii jiri doon tartanka sabab la xiriir dhibaatooyinka daafaca kooxda. Henry oo hadalkan sheegay kadib markii uu daawaday kooxda Arne Slot oo luminaysa hogaanka 2 gool kulankii furitaanka Championka. Reds ayaa ku badbaaday gool waqtigii dheeriga u dhaliyay Van Dijk. Liverpool ayaa haatan laga dhaliyay ka badan 1 gool dhammaan 3 kulan ugu dambeeyay la ciyaaray Newcastle, Bournemouth iyo Atletico de Madrid. Henry ayaa sheegay in xidigaha Arne Slot qasab ku tahay inay hagaajiyaan daafacooda haddii ay doonayaan Champions League. Liverpool ma hubo laakiin xitaa tan iyo xilligii hore waxay dhalinayaan goolal badan taa waa inay meesha ka saaraan. waxay mar kale ka soo badbaadeen Burnley. waxaa jirta in mararka qaar guuldaro ay soo raadsato saa darteed cabasho badan kama jirto. tababaraha Liverpool Arne Slot ayaa isna qirtay dhibaatooyinka daafaca kooxda isagoo sheegay inay ka shaqeyn doonaan isbedel wanaagsan in ay sameeyaan. maxay ahayd sababta ka dambaysa guuldaradii soo gaartay Chelsea? Enzo Maresca ayaa ka hadlay guuldaradii ay kala kulmeen Bayern. guud ahaan bandhigu uu fiicnaa waxaan si xoog leh ku bilaabnay 20 daqiiqo ugu horeeyay waxaana awoodnay 2 ama 3 fursadood laakiin goolka koowaad oo aan iska dhalin karnay daqiiqada ciyaartu ayaa wax bedelay. waxaan ku jirnay jawi degan gool ayaan dhalinay go'aan garsooraha inuusan Jonathan Tah cazaan siin wuxuu ahaa mid adag sababtoo ah wuxuu u qalmay. waxaan ka baran karnaa ciyaartan kulamada noocan ah waxay u badan yihiin in si sax loo ciyaaro 95 daqiiqo oo dhan looma baahna kaliya qayb ka mid ah in la ciyaaro. guud ahaan bandhigu uu wanaagsanaa balse hadda waa inaan soo kabanaa sababtoo ah dhowr maalmood gudahood kulan adag ayaa inugu soo socda ayuu leeyahay macalinka Enzo Maresca aan ku qancin dhibaatada kooxdiisa iyo guuldarada soo gaartay. kulamadii Champions League ayaa ahaa Liverpool oo guul gaartay iyo kooxdii cajiibka ahayd ee Bayern Munich oo ku baashaashay kooxda Chelsea. Lamine Yamal ma ciyaari doona kulanka caawa. tababaraha Barcelona ayaa ka hadlay. Hansi Flick ayaa isku dayay inuu si toos ah uga jawaabin su'aal ku saabsan dhaawaca Lamine Yamal. mar la weydiiyay Yamal wuxuu yiri Lamine waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaartooyda diyaar ku ah kulanka. Rashford wuxuu ka mid yahay safka kooxda haddii ciyaaryahan uu maqan yahay kan kale ayaa buuxin kara. marka uu suxufi kale ku adkaysto inuu bixiyo faahfaahin ku saabsan xaaladda Yamal, Flick wuxuu yiri maaha inaan culays saarno isaga waxaan haysanaa shaqaale caafimaad oo heer sare ah waxaan arki doonaa sida uu soo kabto. haddii uu soo laabanayo waa inuu noqdo 100% diyaar. waa ciyaaryahan daayar waa inaan si taxaddar leh aan ula dhaqanaa ayuu leeyahay. Lamine Yamal ayaa la filayaa inuusan garoomada ku soo laaban ilaa dabayaaqada bisha September. isagoo la arkay sawiro isagii saaxiibtiisa oo dalxiis ku jira xidig gacaanka ah ee lagu magacaabo Lamine Yamal. dhinaca kale macalinka City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay kooxdiisa aan lagu tirin karin kuwa ugu cadcad hanashada Championka xilciyaareedkan. shirkii jaraa'id Korea kulanka ay wajihi doonaan Napoli. marka laga hadlayo mudnaanta kooxda macalinka Spanish wuxuu yiri ma siin doono Champions League mudnaanta aan siinayn horyaalka. waxaan rabnaa in si wanaagsan u ciyaarno dhammaan tartamada. Pep ayaa sidoo kale ka hadlay xidigaha Napoli sida Kevin oo ugu soo ciyaaray City. waxaan rajeynayaa inaan la kulmo ciyaarta kadib waa wax weyn inuu ku soo laabto Etihad Stadium. dhinaca goolhayaasha
mar walba waxaan haysanaa golayaal fiican sida Ederson iyo kuwa kaloo na caawiyay xilli horeba, laakiin Donnarumma si kastuu weli uu yahay 26 jir waa goolhaye khibrad leh. waxaa xusid mudan in City ay la daalaa-dhacayso natiijooyin isbedbedel tan xilaareedka hore iyadoo rajeynaysa inay dib ugu soo laabto wadada guulaha kooxda. macalinka laakiin wuxuu leeyahay championka waxaan uga muhiimsan horyaalka inaan si wacan u ciyaarno. sheekooyinkan waa kuwa ugu xiisaha badan ciyaaraha kulamadii la ciyaaray iyo kuwa caawa lagu madalsan yahay in la ciyaaro, iyadoo caawa kulamada ugu adag ay yihiin Manchester City iyo Napoli kulanka ay iswajihi doonaan, halka ay ciyaari doonaan Barcelona iyo Newcastle. garoonka Newcastle lagu ciyaari doonaa Bayer Leverkusen waxay booqanaysaa Copenhagen, Galatasaray waxay wajahaysaa Frankfurt, Club Brugge waxay soo dhaweyn doontaa AS Monaco, Sport Lisbon iyo gurigeeda ku sugaysa kooxda yar ee Krad Almet lagu magacaabo. sheekooyinkan ay goobina saaxiibayaal nagu soo biir bartaana subscribe inoo saar si aan u helna saaxiibo badan. mahadsanidin.